Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee halkan ku soo gudbino. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa aflaam dhowr ah. Aflaamtaas oo kuwa xiiso badan soo bixi doona xagaaga inta ka harsan bilaha 7 iyo 8. Filimadaas waxaa ugu horeeya filimka lagu magacaabo NBK 107. Filimkan waxaa hogaamiyay ninka lagu magacaabo Nandamuri Balakrishna. Waana filim aad u xiiso badan aadna looga wada sugay dhankaas Telugu. Sidoo kale filimkan waxaa ku helisay gabadha lagu magacaabo Shruti Hassan, halka uu filimka door weyn ka qaaday ninka lagu magacaabo Dunia Vijay oo hogaamiye ka ah oo laga dambeeyay dhankaas Malayalam ama Karnataka. waana xidig ku weyn markaas la joogo fanka Bollywoodka ama dhankaas Koonfur Hindiya. haddana wuxuu ku soo biiray filimka lagu magacaabo NBK 107 oo laga leeyahay dhankaas Telugu. Filimkan waxaa director ninka lagu magacaabo Gopichand Malini hore u sameeyay filimkii Crack oo la daawaday sanadii 2021. Filimkaas oo ahaa filim aad u xiiso badan aad loo wada sugayay. haddana wuxuu la imaaday filimka NBK 107 oo ku xarankeyn doona ninka lagu magacaabo Nandamuri Balakrishna. sidoo kale waxaa ku jira gabadha laga dambeeya lagu magacaabo Farah Lakshmi oo filmaanta inta badan ka qaadato door la xumaan ama laadarnimo. weli filimkan lagama shaacin doorka ka qaadan doonto xidigtan. Filimkan haddii xidigtan kusoo biirto filimkan waxaa noqon doonaa filim heer sare ah, maadaama xidigtan filimada inta badan ay ka qayb qaadato filmadaas sheekadooda aad u wanaagsan tahay. maadaama xidigtan ay doorato filmo sheekadooda aad u wanaagsan tahay, filimkan waxaa la filayaa inuu filim heer sare u noqdo. halka filimkan uu kusoo laabanayo ninka lagu magacaabo Nandamuri Balakrishna oo filimkiisii hore oo u noqday blockbuster weyn, kaasoo ahaa mashruuca Khanda oo la daawaday November 2021. kaasoo ahaa filim aad u xiiso badan aadna looga helay markaas la joogo dhanka Telugu. sidoo kale anagana waan daawan af Soomaaligiisa. filimkaas waa filim heer sare oo Nandamuri ku xarakeeyay laba door oo kala duwan filimkaas ku matalayay. haddana actorkan waxaa la imaaday filim heer sare ah, kaasoo filimkan markii aad daawato goosgoos laga soo bandhigay heer sare si heer sare loo sameeyay. director Gopichand Malini aad looga yaqaan dhankaas Telugu, filimadiisana si heer caalami ayuu sameeyaa. xidigana aad ayaa looga jecel marka la joogo Nandamuri Balakrishna. sidoo kale noloshiisa haddii aan actor ka hadlo, wuxuu adeer u yahay actorka caanka ah lagu magacaabo NTR. sidoo kale wuxuu adeer u yahay ninka lagu magacaabo Nandamuri Kalyaram oo ka tirsan fanka Bollywoodka. waana actor awood ku leh marka laga hadlayo dhankaas fanka Telugu, saameyn ballaaran ku leh. tan iyo 60maadkii ayuu actor xidigan dhankaas Telugu laga dambeeyay. ilaa hadda actorkaas weli taageeraysa ma dhicin ilaa xilligaas hadda uu fanka duq ku joogo, maadaama da'diisa la sheegay kor u dhaaftay 60 sano. haddana da'diisana 60 sano 70 ku dhowdahay. ilaa haddana fanka Tollywoodka markaas wuxuu ku leeyahay awood ballaaran, halka xidigii hore ee markaas Tollywoodka sida Chiranjeevi ninka lagu magacaabo rag badan oo kamid ah markaas date-kooda dhacay ama dansan oo markaas filmaantooda haddii masrax loo saaro markaas noqonaya flop. halka xidigan filimkiisii markiis Khanda tiyaatarada loo saaray kaasoo noqday blockbuster. halka filimkiisii ka horay 2019 la daawaday Ruler kaasoo u noqday super hit, kaasoo ahaa filim aad u xiiso badan aadna looga helay markaa jilinku ka sameeyay ninka lagu magacaabo Nandamuri Balakrishna. haddii aan kusoo gudubno filimkan lagu magacaabo NBK 107, balse filimkan weli magac looma shaacin, halka loogu yeeray NBK Nandamuri Balakrishna 107. waana filimkiisii 107aad xidigan oo sameynayo. fankan wax badan ayuu kusoo jiray xidigan. sidoo kale filimkan waxaa lagu dhawaaqay xilliga la daawan doono, waana xagaag inta ka harsan ayaa filimkan la daawan doonaa bilaha September iyo October iyo November. haddana filimkan shaqadiisa way socotaa. Soomaalida waxaa laga soo bandhigay goosgoos yar oo markaas lagu tusay doorka uu ka qaaday ninka lagu magacaabo Nandamuri Balakrishna, maadaama uu dabaaldegayay sanad guurada dhalashadiisa. tiimka filimkaas ka leh waxay ugu talagaleen taageerayaashiisa inay ka farxiyaan maadaama ay tahay dhalashadiisa. saxaabta filimkan wixii ka soo kordhan waa la soo socodsiin doonaa halkan nagala socda. sidoo kale asxaabta barnaamijkan waxaa ku soo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo On the Battle Within.
Filimkan waxaa hogaamiye ka ah ninka lagu magacaabo Aditya Roy Kapoor. Sidoo kale filimkan waxaa ku wehelisa gabadha lagu magacaabo Sanjana Sangania. Sidoo kale filimkan waxaa door weyn ku leh ninka lagu magacaabo Abdul Xasan. Filimkan waa filim aad u xiiso badan, halka filimka uu director-ka yahay ninka lagu magacaabo Kapil Sharma. Filimkan waa filim aad looga sugay dhankaasi Bollywood-ka, wuxuuna ku xarakeyn doonaa ninka lagu magacaabo Aditya Roy Kapoor. Tan iyo filimkiisii Malang oo la daawaday sanadii 2020. Filimkaas waa filim aad u xiiso badan. Aditya Roy Kapoor filimkaas uu ku matalay nin isbedelay maadaama filimada doorarka uu ku matalay jiray doorar jacayl ah, halka filimkaas uu kusoo bandhigay doorarka actionka inuu xiddigan qaadan karo. Haddana wuxuu la imaaday film action heer sare leh, waana filimka On the Battle Within. Filimkaas waa filim aad u xiiso badan, ahna mid aad looga wada sugayo dhankaasi Bollywood-ka. Mashruucan waxaa tiyaatarada la saari doonaa 1 July 2022. waa 20 maalin kadib ayaa tiyaatarada loo saari doonaa xiddigan. Muddo 2 sano kadib ayaa filimkiisa tiyaatarada loo saari doonaa xiddigan, balse waxaa halka filimkan laga yaabo inay tiyaatarada isku qabsadaan filimka Jug Jug Jayo oo hogaamiye ka yahay ninka lagu magacaabo Varun Dhawan, halka filimka Jug Jug toddobaad ka hor la saari doono 24 June 2022. balse filimkaas waxaa laga yaabaa cadaadis inuu kala kulmo maadaama filimka Jug Jug Jayo inta badan ay daawan doonaan qaraabada ama dadka family-ga filimkaas inay daawan doonaan, halka filimka lagu magacaabo On the Battle Within ay daawan doonaan dadka inta badan jecel akshamada iyo sidoo kale taageerayaasha uu leeyahay ninka lagu magacaabo Aditya Roy Kapoor ayaa filimkan daawan kara oo kaliya haddii markaas filimka sheekadiisa tahay mid heer sare ah. Waxaa laga yaabaa filimkan inuu helo daawadayaal aad u badan, halkaasna uu ka helo shacbiyad aad u ballaaran iyo filimka marka inuu guuleysto. Sidoo kale filimkan waxaa producer-ka ninka lagu magacaabo Ahmed Khan oo hore u sameeyay aflaan badan ay ku horeeyaan taxanaha Baagi. Asxaabta filimkan On the Battle Within waa filim heer sare ah oo si weyn loo wada sugayo, si heer sare loo sameeyay. sidoo kale waxaa laga soo bandhigay goos cajaa'ib badan iyo doorka uu qaadanayo ninka lagu magacaabo Aditya Roy Kapoor oo aad u xiiso badan. Sidoo kale waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Prakash Raj oo Serapta oo inta badan sanadka 2021 filimada ugu badan oo markaas ka soo muuqday shirkadaha kala duwan Hindi haday noqon lahayd Telugu iyo haday noqon lahayd Bollywood-ba. wuxuu noqday xiddig markaas ka dhaxeeyo shirkadaha Hindi iyo idil. haddana filimkan wuxuu ku jira On the Battle Within asagoo markaas garab siinaya ninka lagu magacaabo Aditya Roy Kapoor. Asxaabta filimkan wixii kasoo kordhana halkan ay kala socon doontaan. sidoo kale barnaamijkeena waxaa kusoo gabagabeynaynaa filimka lagu magacaabo Paka Commercial. filimkan waxaa hogaamiye ka ah ninka lagu magacaabo Gopi Chande. sidoo kale waxaa tirisho kuwaad ka ah gabadha lagu magacaabo Raashi Khanna. filimkan waa filim aad u xiiso badan, waxaa laga leeyahay dhankaasi Telugu. sidoo kale filimkan waxaa doorar muhiim ku leh ninka lagu magacaabo Velela Kishore oo markaas aad looga yaqaan dhankaasiyo Telugu. filimkan waa filim iskugu jira action iyo comedy oo si heer sare loo sameeyay. waxaa director-ka ah ninka lagu magacaabo Murthy oo hore filimaan uga sameeyay dhankaasiyo Telugu. filimadaasna ay ka mid yihiin filmadii caanka ahaa ee lagu magacaabo Babu Bangaram oo sanadii 2016 sameeyay, kaasoo ku xarakeeyay ninka lagu magacaabo Venkatesh. filimkaas oo noqday blockbuster weyn. haddana wuxuu la imaaday filimka lagu magacaabo Paka Commercial oo hogaamiye ka yahay ninka lagu magacaabo Gopi Chande oo filimkiisii ugu dambeeyay ahaa filimkiisa Timaar, kaasoo noqday filim guuleystay oo aan hit gaarin maadaama filimkaas tiyaatarada saarnaa muddo bila. filimkaasna cadaadis badan ayaa waxaa saaray filim lagu magacaabo filimkii Akhanda ayaa filimkan cadaadis weyn saaray maadaama 2 toddobaad markuu saarnaa oo markaas kasoo dababaxay filimka lagu magacaabo Akhanda, kaasoo tiyaatarada kala wareegay. filimkaas waa filim aad u xiiso badan, ninka uu ku matalay action iyo arrimaha sportiska. haddana wuxuu la imaaday filim aad u xiiso badan kaasoo iskugu jira action iyo comedy iyo arrimaha kiisas markaas la baarayo iyo maxkamadeyn markaas filimkan uu ka saabsan yahay. filimkan maanta ayaa waxaa laga soo bandhigay goos kooban kaasoo lagu sharaxayo doorarka kooban ee filimkan ku leeyihiin dadka kasoo muuqan doona ama dadka doorarka supporting markaas ka qaadan doona filimkan. waana filim aad u xiiso badan oo laga wada sugay dhankaasi Telugu, halka teaser-ka koobnaa ee laga soo bandhigay 8 bilood ka hor ay daawadeen ku dhawaad 10 milyan.
haddana waxaa la filayaa filimkan trailerkiisa inay ku dhawaad daawadaan 20 milyan ama 2 jibaar. filimkan waana filim aad u xiiso badan. hadda goosgooska waxa uu yaalaa muddo 3 saacadood waxaana daawaday ku dhawaad 1 milyan oo qof. asxaabta haddii aad muuqaal ka hesheen leeg noo saara, sidoo kalena sii sheer garaya si uu gaaro saaxiibo badan. waana ku mahadsantihiin barnaamijkii si ay ula socoteen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.